maanta oo maalin khamiisa shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland ka bacdi inaan ka idhaahdo hadal xaaladda guud ee wadanku uu marayo gaar ahaan Jubbaland guud ahaan Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan oo xilligii gobonimo doonka xilligii xorriyadda ay qaadatay halganka xilligii kacaanka waqtigii burburka iyo dagaalka sokeeye iyo xilligii aduudka iyo dib u heshiinta iyo soo celinta qarannimadii Soomaaliya dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay laga bilaabo aakhirkii 90kii ilaa 91kii wuxuu soo socday muddo dheer oo qaadatay waqti oo Soomaalidu dagaalkaas sokeeye uu gaaray seedi iyo sodon iyo adeer iyo eedde iyo habaryar midna inaan la badbaadin waxaa bilowday oo intaa istaagin dad Soomaaliyeed oo damiirku ku jiro oo raadinayay mar walba Soomaaliya xaaladda ku jirta in dib u heshiisiin laga galo la isu keeno Soomaaliya la soo celiyo lagu soo celiyo saaxada ay loobaan dhibaatadii dhacaysa la joojiyo taasi waxay keentay markaa shirarkii ugu horeeyay Jabuuti iyo markii laga soo bilaabo in la isu geeyo Soomaali oo la war Soomaaliyay goolintii loo dhigay xageen joognaa maxaan haynaa maxaa inoo dana ay keentay markaa in la soo aaduudo bal Soomaali haykal dowladnimo oo ay ku heshiin karto in la isugu yimaado shirkaasi wuxuu dhalay in raad uu ka soo baxo waad garan kartaa markaa xilligii shirkii carta uu dhacay dowladdii TFG ee xilligaa la soo magacaabay shacabka Soomaaliyeed rabitaanka dowladnimo sidoo ku ahaa iyo ilaa meesha u soo baxeen iyo si u soo dhaweynayeen macaalasaf waxay ahayd tallaabo hore loo qaaday laakiin mayna noqonin sidii rabitaanka shacabku u ahaa inay u gaadho waxaa ka dambeeyay shirar badan oo ka dambeeyo kii Imbagati oo lagu soo dhisay haddana dowladdii TNG-da markaa ka bacdi waxaa la yimid in la dhiso 2012kii dowladdii rasmiga ahayd ee federaalka Soomaaliya oo shirkeedu uu ka dhacay doorashadeeda Muqdisho oo lagu dhisay dowlad rasmi ah waxaa ka horeeyay kii Jabuuti ee la isku daray muqaawamadii iyo dowladdii TFG ee xilliga TNG ee jirtay xilligaas dowladdaas la dhisay 2012kii ee rasmiga ahayd waxay qabatay shaqo badan oo ay ka mid ahayd inay dhammaystirto federaalkii Soomaaliya nidaamkii federalismka ah oo markaa ay keentay in isteediyadii la dhiso oo nidaamkii haykalkii federal systemka ahaa gacmaha lugaha loo taago taasina ay u noqoto sabab in dagaalkii shabaabkuna guulo badan laga gaadho dhulkuna isu socod uu gaadho ay gaadhay arrinta amnigu xataa markii ay dhacaysay doorashadii 2016 ee federaalka la isu diyaarinayay ninka musharaxa ama mas'uulka ah ee jawhar kursigiisu yaallay shaqadu raadsanayay inuu intuu ka lugeeyo gaarigiisa qaato drive gareeyo inuu ilaa iyo Muqdisho iyo jawhar inta u dhaxaysa oo dhulka marayo oo soconayay waxay gaadhay in laga fogeeyo shabaab deegaanadii ay hayeen magaalada Muqdishona si dhammaystiran ay isugu furanto dowladdaas waxaan oran karaa waqtigeedu dhammaaday iyada oo ay taagan tahay systemkii federaalka ahaa dowladnimadii aan ku meel gaar ahayn beeshii caalamku ay soo wada jeesato ay noqoto doorashadii ku xigtay 2017kii inay ka dhacdo Muqdisho si nabada iyadoo ay tahay maxaa ka dambeeyay waxa ka dambeeyay ee dhacay waxay noqotay dowladdii xilligaas lagu rajada weynaa 2017 wadanku xagee buu aaday xagee buu u socdaa muxuu gaadhay muxuu noqday su'aal waxa weeye meesha in la isweydiiyo u baahan waxaa lumay oo la waayay dhammaan amnigii oo burburay oo ninkii u kala lugeyn jiray Muqdisho iyo Jawhar gaariga u kala qaadan jiray siyaasiga ah ay ku adkaatay Muqdisho dhexdeeda in wax ka qabto ay noqoto in madaxtooyada duqeynta ay ku socoto ay noqoto qaraxyadii ugu badan inay Muqdisho ka dhacaan ay noqoto in la waayo dowladnimadii iyo amnigii iyo
kala dambeyntii in caasimadda laftirkeeda dhibaatada ay halkaas ka gaadho waxay noqotay inuu burburo haykalkii dhismo ciidan ee waddanku iska lahaa ood garanaysaan maanta meesha uu taagan yahay waxay noqotay in la waayo sistamkii federaalka ee dowladdii 2012kii la doortay ay soo dhammaystirtay in maanta kulligii dib loogu noqonayo burbur iyo raad aan jirin ay dib ugu noqoto waddankii uu kulligii dib u noqonayo ay noqotay in raadkii dib loo qaado waxay noqotay cunaqabatayn dhaqaale oo waddankii oo dhan lagu soo rogo laga bilaabo Somaliland iyo ilaa inta kale oo mid walba sidan aan rabnaa sidan ma tahay haday noqon weydo maxaa anaga danno ah inay noqoto waddanka in kulli dib loogu celiyo waxaan oran karaa waxay noqotay mid lagu hungoobay oo wuxuu dadku ay tiirsanayeen iyo amaashoodii lumisay oo ay noqotay wixii laga raadinayay waxaan ahayn inay meesha ka soo baxeen waxaa timid Jubbaland iyo dhismaheedii Jubbaland waa deegaan Soomaaliya ka tirsan oo ka kooban 3 gobol oo ah gobolada Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose iyo gobolka Gado markaan ka soo qaadnay deegaanka maanta aan joogno wuxuu ahaa meelaha Soomaalida qof waliba uu ka fakarayay ee uu isweydiinayay dagaalka sokeeyana inuu ugu dambeyn doono dhibaatada Soomaaliya inay noqonayso meesha xalkeeda in la gaaro ay ugu adkaanayso sababtuna waxay ahayd wada noolaanshaha dadku mujtamacu ku wada nool yihiin iyo damaca dadka ku dhex jira ee qolo walba iyadoo damaceedu yahay lahaanshaha ay sheeganayso iyo sida ay iyadu u rabto inay wax ugu noqdaan taasoo shabaabkuna ay tahay meesha uu ugu badan yahay sababtoo isagoo mar walba qadarinaya wada noolaanshaha bulshadaasi inay tahay waxa keeni karaya in dadka la isku diro lagu dhex noolaado beelaha la kala dhex galo la iska hor keeno iyo geographically nooca deegaanku u dhisan yahay u ogolaanaya inay ama ku dhuuman karaan ama ku noolaan karaan ama ay siyaalo badan oo noloshooda kalifaysa ay ugu jiri karaan caqabada markaa qof waliba uu sugayay waxay ahayd inay arrintaas xalkeedu u adkaanayo oo noqonayo gobolka ugu dambeeya laakiin ilaahay baa iskala mahad subhanahu wa ta'ala dadka reer Jubbaland way tashadeen ciidamada loo tababaray way isku soo tashadeen dagaalay qaadeen inta badan deegaanada marka laga reebo Jubbada Dhexe gobolka Gado iyo Jubbada Hoose intiisa badanba waxay noqotay in lagu xoreeyo dagaal ay dadku isku tashadeen iyadoo ay jiraan dawladda iyo dad caawinaya haddana dagaalkaasi uu noqday inuu sidaa ku dhaco Kismaayo oo ahayd mixwarka dagaalka ama gundhiga oo ahayd meesha dagaalku had iyo jeer ka socday siraaca la isku haysanayay waxay noqotay dadkii reer Jubbaland markii ay yimaadeen ciidamadu ee la soo galay waxa ay ka shaqeeyeen ugu muhiimsanaa wuxuu noqday in dib u heshiisiin la sameeyo system dawladnimo oo loo dhow yahay oo maanta jareer iyo jileec iyo baajuun iyo carab iyo qof kasta oo Soomaaliya oo xuquuqdiisa ku leeyahay qof waliba xuquuqdiisa iyo matalaadiisa uu ku yeelanayo oo qof walba maanta meel oo ku qancayo ku soo hagaagaya ay noqoto la isku dayo inaan isku dhabar jabino in la dhismo Jubbaland oo dadku ay leeyihiin kaasoo macnihiisu yahay inuu fudaydiyo ama uu sahlo wada noolaanshaha dadka iyo isku dhex jirka iyo jacaylka iyo kalgacaylka dhexdooda ka jira taasi waxay guul u noqotay Soomaalida oo dhan oo u aragtay mar haddii deegaankanba lagu heshiiyey oo nabadani ay ka jirto oo isdhexgalkani uu ka jiro oo qof waliba maanta uu matalaadiisa helayo alla ilaahay Soomaaliya dawladnimadeedu way si aanbaqaadi kartaa taasaa waxay keentay markaa dhismihii Jubbaland inaan dhisno oo marxaladii koowaad iyo marxaladii labaad oo hadda la gelayo ay noqoto xaaladda laga gaaray sida ay noqoto dhibkii laga soo maray oo ahaa in shabaab laga xoreeyo deegaanada oo ahayd in dib u heshiisiin dadkii loo sameeyo la isu keeno oo ahayd in raadkii argagixisada la baabi'iyo waxaan filayaa deegaanada aan dagaalka ku soo maraynay waxaanu ugu imanaynay calan madow oo ka sulan markaas intaanu bedelay waxaanu ku bedelay calankii buluuga ahaa ee santa gees lahaa ee jamhuuriyadda Soomaaliya ay lahayd waa wax taariikhi ah oo taariikhdu aqoonsi ma intuulo iyo ceel la qabto oo calan ka sunayn muuna jirin
calan walbana waxaa lagu bedelaya kii jamhuuriyaddu ay iska lahayd ee dadku u lahaa waxaa la dhisay dhismahaas Jubbaland oo noocaas aan idiin sheegayo loo soo maray waxaa jiray shirka ugu horeeyay markii la qabanayay xilliga dawladdii jirtay ee rasmiga ahayd wax badan oo iska horimaad siyaasadeed baa jiray taasaa waxay keentay markaa inay jirtay inkastoo markii dambe dib looga noqday in abaabul badan oo qaab dhismeedka looga hadlayay uu jiro ay keentay in rag badani ay isku dayaan inay sheegtaan ilaa 5 madaxweyne oo nin walba ismagacaabay laakiin ay noqotay gogashii taallay in qof walba intii laga daba tago la keeno lagu soo daro systemka maantana qof walba la garanayo meesha uu joogiyo maqaamka uu ka leeyahay Jubbaland oo ay noqotay dib u heshiisiin dhaba oo qof walba loogu yeedhay oo qof walba markii dambe uu garaystay aleelaha waxa uu isagu leeyahay yaa midana iyadana sax u ah waxa ayaan daran noqotay markaa dawladdii federaalka ahayd ee 2017 inay guud ahaan baal martay wadanku waxa uu ku jiray iyo wixii la soo maray waxa nasiib darro ahayd aragtida Kismaayo markaan soo galeynay waxaan wadanay meed iyo dhaawac nin markaa Starbucks fadhiyo kafee cabayay oo aan garanaynin waxa lala soo maray iyo waxa jiray inuu maanta ilaa wadanka oo dhan raad baan dib ugu celinaya waa ayaan darro aad baa arrin u noqotay waxay soo celisay dawladnimadii burburkii dawladnimadii Soomaaliya la dagaalankii federal systemka ahayd iyo jahawareerin iyo al-shabaab oo dagaalkoodii la joojiyo si xoogaysta waxa laga dhaxlay bay noqotay dawladdii 2017 la soo dhisay waxay gaadhay in maanta madaxtooyadii Soomaaliya lala dhacayo hoobiyaha waxay gaadhay istaadiga Muqdisho in maanta hal la dhisay intii la yiraahdo ciidamadii laga saaray cidii dhisi lahayd la yiri lacagtaad ku qaadateen waa inta la joojiya oo shabaab maanta ay kontroolaan ay joojinayaan in lacagta loo shoomayo ay waxba ku soconayn intaas oo dhan markay noqotay waxay dawladdu dib ugu noqotay burbur iyo federal systemka iyo state-kaas muxuu jiraa iyo yaa nala socda iyo 2020 seen noqonaynaa iyo seen ku soo noqonaa inay noqoto raadka meesha ay ka bilaabeen wuxuu yahay dagaalka Jubbaland iyo dawladda federaalka ka dhaxeeya waxaan in badan ka hadlay dawladda federaalka ee Jubbaland inuu dagaal ka dhaxeeyo Jubbaland inay jirin colaad ay u qabto dawladda federaalka bal aan doonayno dawladnimada Soomaaliya iyo raadka ay leedahay in la dhiso oo wixii lagu heshiiyay uu socdo waxaan marar badan ku celeelinay waxa dadka kala hagaya ee la isugu iman kara inay tahay dawladda jirin qof ka xoog badan iyo ana ay midna inuuna jirin qofna awood iskale isagu inuuna jirin haddii sharciga lagu kala dambeyn waana qofna qof adoon uma aha mana gumaysta kamana xoog badna dastuurka lagu dhaqmo ayay noqotay waxa ugu badan ee anaga iyo dawladda federaalka aan isweydiinayno waxa burburay waji walba wax loogu sameeyay khilaafkaasi waxaan ku doodnay war shay kasta oo isku qabanno dastuurka aan dib ugu noqono waxa waa inuu jiro marjac loo celinayo waxa laga hadlay doorashada 2020 iyo wajiga yeelanayso waxaan marar badan ku celinay 2012 dawladdii ahayd markii 2016 doorashadii la diyaarinayay waxa lagu gaaray heshiis siyaasadeed siyaasiyan aan ugu heshiino bulshadu iyo shaaricu ma xukumo shaaricu istiraatiijiye ma qeexo heshiis siyaasadeed bay u baahan tahay aan ka heshiino qodobada dastuuriga ee u baahan in laga heshiiyo oo ay ka mid tahay dhamaystirka dastuurka oo ay ka mid tahay doorashada 2020 oo ay ka mid tahay resource sharing iyo khayraadka sida loo qaybsanayo oo ay ka mid tahay qodob kasta oo u baahan in laga heshiiyo 2020 ninkii ilaahay calaf ugu daray baa ku soo noqonaya aan dariiqa dastuurka u maro waxaan ku wada hadalnay midaas ah taasaa keentay in isteediyadii kulli maanta loo burburiyo oo la yiraahdo mid walba haye maanta koonfur galbeed halkaas galmudug wataas oo ku wadaan inay 10 bari 15 bari galmudug isugu soo celinayaan dawlad ugu dhisayaan iyadoo tii u dhisnay ay burburinayaan Jubbaland baanu ka wada hadalay waxa la yiraahdo war doorasho qabanayna dastuurka hal raaco xuquuqda sharcigu siinaya aan mar boroseeska oo dhan baan qaadanay intii dad la soo xareeyo waxa lagu yiri qof walba ha tagisteena la yeelaya ama waan soo qabanaynaa ama lacag baan siinaynaa waa la tagayaa oo maxaa keenaya sanduuq baa jira sanduuq ha lagu kala baxo sanduuq dan nooma aha
kitaab la warkay moog baan in laga sheegay waxaa la kitaabka Ilaahay kan qorayo kitaab la warkay moog bulshada aayadii baa dhimatay waxay keentay inay qaadan waayaan inay ku qancaan waxa la qarsanaya wixii dadka ka dhaxeeyay marka lagu qanci waayo waxa la qarsanaya waa maxay waa su'aal meesha taal waxaan ilaahay dastuurka kala baxno dhismaha xuquuqda Jubbaland ay siinaysaa la mid process dheer baa la soo qaatay guddi baa la magacaabay in alaaliya intii ay qaadan kareysay baa la qaatay dad baa lala soo hadlay waa la celiyay waa la joojiyay waqti waa loogu daray kana la yeelay iyagu inta waxay u sheegeen ma aha tagina waa la soo qaban waa la soo xiraya waa la burburinaya waa la joojinaya sidana la yeelaya ma ayna suurta gelin wixii Ilaahay qadaray baana dhacay mana ahayn macna ayagu keenayeen oo wax ku diidi karaan khayaali iyo riyo la isu sheegay bay ahayd waxay luminayaan matalaadii dawladnimo iyo wixii Soomaaliya ay ka sugaysay sidaas ay ku dhacday in doorashadii Jubbaland ay ku dhacdo khilaafkay sii wadeen wali ay sidii u sii xoojinayaan doorashada kadib xilliga doorashada waxay dawladdu aad isugu dayday inay faragelin badan samayso waxay isku dayday inay ciidamada talaabooyin ka qaado waxay isku dayday askari kasto shabaab la dagaalamay furin ku jira inay ka soo bixiso oo ay tiraahdo kaale qoriga inta soo qaado dagaalan oo dhibaato iyo mushkilad geyso waxay isku dayeen 300 oo musharaxnimo walba in la yiraahdo waxa tahay sidan iyo sidan iyo sidan waxa soo dhan kulligeed waa wax dawladnimada Soomaaliya lagu luminayo oo meesha lagaga saarayo lagu waxaynayo waxay keeneen inay wasiiradii wasiir baa hadda la xidhay maxaa lagu xidhay waa su'aal wasiirkii amniga oo hawl shaqo u jiray baa intii loo yeeray oo leeyahay kulan baan rabnaa inaan kula qaadano oo meel kale looga yeeray baa markuu soo dayay baa la xidhay maxaa lagu xidhay waxaa jirtay maxkamad warqaday mar hore qortay oo la yiri dad baa loo haystaa shabaab iyo waxay ahaayeen ba isku jiro leeyahay dad baa la dilay waa laga soo tagay afartii bishii abriil baa maxkamaddu waxay qortay ninka in lagu waayay dambiyada wasiirka loo haystay waa lagu waayay waxa lagu waayo wasiirkiisa oo shaqadiisu u tocdo magaaladii maray waa la qabtay waa la xidhay waa la hadlay isaga wuxuu ku yiri waran in xidhan baan wax laga hadlaysaan waa ma waxa loo yeeray dad qaraabadiisa intii la hadlay waa kaale imaadaan ka wada xaajoonay maxaan ka xaajoonaa waxa la yiri kow waa inaad ogolaataan si aan u sii deeno wasiirka Jubbaland inaad tirahdaan dhismaheeda ma aqoonsanin way burburtay laba in doorasho lagu qabto goboladaas gedo saddex ciidamada la hayo in la soo wareejiyo markaas waxaan samaynaynaa heshiiskan nala gashaan baan isaga soo daynaynaa waxaa la yidhi heshiiskan uu idin lama gali karo dawladda Jubbaland la yiraahdo way jirtay qabiil la meesha kuma shirinaysaan Soomaaliya maamulka soo dhisatay waxaan aqbali karnaa ma isagii soo daaya Jubbaland kala hadla waxaad kala hadlaysaan wasiir xasaanad leh oo la dambi waa lagu waayay oo iyagu cadeemaha waa la cafiyay waa lagu waayay ay warqada qoreen ba inta la maraya intii loo yeeray niman aqoonyahan oo jufadiisa oo loo yeeray ba inta lagu hadlay waa ceeb waa waxaan saliya raad lahayn waa wax meel loo qaado aan lahayn waxa laga fakarayo waxa laga hadlayo ma dawladnimadii Soomaaliya waxay gaadhay in noocaas loo dhaqmo ma waxaan oran karaa magafa ka dilay magafa waxaan ku maqlay jiray saxaraha Liibiya niman inta dadka qaadaan isxambaana oo magafa dawladnimadii Soomaaliya ma magafa isugu noqotay wax sax ma waxa ku xigay odayaal dhaqan baa is abaabulay oo jufo ahayn oo qabiil ahayn oo Soomaaliya oo gobolka Gada ka tagay waxay dhahan madaxweynuhu haddii wax dhaqan Soomaaliyeed uu jiro dad wax ka dhaxeeyaan odayaal baan lagu ixtiraam haddii dawladnimo tahayna lagu ixtiraam arrintan nagala hadlo wasiirka hadalku wasiir madaxweynuhu ku yiri waxay ahayd ma aqbalayno Jubbaland dhismaheedii ninkaas wuu xidhan yahay Amnesty International baa haysata Amnesty International wadan dagaal sokeeya ka dhacay burburka noocaas ku jiro Amnesty wax ka qabanaysa wax ka og maxay tahay Amnesty wax ka qabata Cabdiraxmaan Cabshakuur shalay wiilashii la socday la leeynayay Amnesty wax ka qabata dadkii beedhaba lagu laayay ee lagu dalacsiiyay ninkii ilaha xoog baan leena waan leynaynaa hadda taliye ciidan looga dhigay what is the Amnesty haday maanta wax mudanaysa ma hogaanka dawladda federaalka yaa u baahan Amnesty sharcigeeda haduu qabanayo inuu soo keeno Amnesty UK adiga sharcigeeda
odayaashii lug bay sayidka kaga soo lugeen ilaa madaxtooyo lugna way ku noqdeen xataa waa lagu ixtiraami waa in la qaado la hoteeladooda la geeyo away Soomaalinimadu away dawladnimadu away waxa laga hadlayaa waxaan oran karaa wasiir Cabdirashiid dambi uu leeyahay kuma xidhna wuxuu ku xidhan yahay Jubbaland kaalay nala burburi isaguna wuxuu yiri waxaan dhisay ma dumin karo waxa kaliya lagu hayo waxaan u baahanahay beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed kulligood inay arkaan waxa maanta villa Soomaaliya ka socday Soomaaliya inuu dib ugu celin doono dagaal sokeeye mid qabiil mid beeleed mid kala fogaansho iyo inta dhibaato inuu kulligii keeni doono waxay yiraahdeen waan cunaqabataynayna Jubbaland garoomadan xidhaynaa baa leeyahay oo maxaa la xidhayaa diyaaradda Doobley ka imanaysa ee Kismaayo imanaysa 30 daqiiqo soconaysa ee $80 laga qaadanay waxay rabaan inay xamar timaado dal Kismaayo timaado Kismaayo markay ka baxayso xamar tagto Doobley timaado $230 lagu charge gareeyo 2 saac iyo badhna ay hawada ku jirto socoto waxay keentay islaantii umusha ahayd iyo tii foolatay sakaraadka ahayd iyo qofkii lala soo cararayay intuu waayay inay maanta jiraan kiisas xeer ilaalintu ay soo gudbin doonto madaxweyne farmaajo iyo wasiiradoodu waxa ay geysteen ijraamka ay geysteen inay dadkii ku baaba'een caafimaadka aadi lahaayeen iyo talaabooyinka qaadan ay dhaqaatiirtooda maanta dadna ay ku dhinteen wadada dheer intay soo qaadeen roobka oo shabaab ay dhibaato ugu filaayeen inay maanta dad ku baaba'een ay u baahan tahay kuwa xuquuqul insaanka u doodaya maxkamadda caalamiga ah in loo gudbi doono biilashaan aan diyaarin doono hadii la hayro dadka wax ku gaadheen arintaas waxaa dhacday diyaaradii xamar ka baxaysay ee Kismaayo tagaysay agaasimayaal baa lala kulmay waxaa la yidhi baasaboorkaaga wuxuu Kismaayaan ka yimid waxaa la Kismaayo ma naqaanay keen muwaadin Soomaaliyeed oo shir u tagay shaqo ya baasaboorkiisa intii la qaaday intari loogu dhuftay Muqdisho from Kismaayo to Muqdisho waxaan su'aal kula yaabayna marka Kismaayo aad ka timid waa dal kale waxay noqotay intii la xanimo lala hadlay in la yiraahdo qabiilkee tahay jufadeed u dhalatay xagee maxaad qabataa maxaad ka doonaysaa in intaas oo dhan la maro waxay kaliftay isla immigrationkii federaalka uu lahaa baasaboorka lagu dhuftay exit-ka laga dhuftay Kismaayo in ay kaasi waa ma soconayo exit labaad loogu dhuftay Muqdisho oo laba exit ay noqotay in hal baasaboor ku dhacdo waa immigration state-ku ma laha waa federal level waxa sababay hadda noogu joogaan ma garanayo وأي عدة لعنا قوتينية ما أنت هدانا نقول دونا ما الله ماشان دونا إننا نسافر without permission كذا ماشان دونا عادي كلام هذا بري يقول لا تبري ونسافر كلام عدة لعنا قوتينية وأيو وحنا لا يشتري البال لا يقيب قليا هم الوزير بانها هي كان هي كل أنسان يلا كان يلا ورودا كريم ما أنت هدانا هذا دولة ستاربكسكا كافيga ku cabeysay shalay timida wadanka wax laga soo maray jirin hadana maanta ma aqoonsani madaxweynihiisa iyo ra'iisul wasaarihiisa iyo dawladda midna ma aqoonsani dawladda iimaha lamana shaqeynay ma la yaabis baan leen shacab baan shalay taxiyo u soo soo meediya dhaawacna wadaan keen marka kafeega la cabayay maantana waxa la taagan yahay wadanka meeshii dib loogu celiyo sax loo yeero iyo doorashada shaarka ma geelayaa ma leekaanaya maxaa kalsooni haday jirto u diiday inay tagaan wadankooda sida yeelaan oo sharaxaan waxay aad isugu dayeen doorashada Jubbaland inay sameeyaan mid ka xuntii ka jirtay koonfur galbeed laakiin waxa taala meesha mana sameyn karaan waxbana kuma dari karaan kuwa hadda beenta u sheegay ay leeyihiin sidaan yeelana hoobiyaha madaxtooyada iska celiyeen waxbana kama qaban karaan waxna kama dhisi karaan talaabana kama sameyn karaan awoodna uma ila hay iska celiyeen waxa iyaga haysta dhaxdooda ka jira waxa la ugu yaqaanaa iscaafis isxushmayn isqadarin isu keenis bulsho isu ururin ba Jubbaland ay ku dhisantay taasaa keentay wixii shalay soo dhacay oo dhan waxaan kaga gudubnay inay sabab noqotay waxaan sameynay dadaal dheeraad oo in allaaliyo intii wax tabanaysay qof walba oo isagu ay dhab ka ahayd intaan u yeedhay inaan la fadhiisano inaan qancino oo aan xalino oo la xaajoodno oo maanta soo dhameystirno waxaan rabaa inaan u mahad celiyo
saraakiisha iyo ciidamada Jubbaland shacabka reer Jubbaland doorashadii nabadda ku qabsoontay waxaan rabaa inaan markaan intaas oo dhan ka soo tagno aan wali diyaar u nahay dawladnimo Soomaaliyeed oo la shaqeynaa in la helo oo aan ka wada shaqeyno waxa ugu horeeya maanta waxa laga hadlayaa deynta in la cafiyo Soomaaliya qof kasto Soomaali oo garanaynin deyntu waxay tahay deyn baa lagu leeyahay in la naga cafiyo shacabka Soomaaliyeed bay dan u tahay waxaan rabnaa in laga wada shaqeeyo waxaan rabnaa in laga wada shaqeeyo dastuurka dhamaystirkiisa waxaan rabnaa si sharciga doorashada 2020 looga wada shaqeeyo waxaan rabnaa in laga wada shaqeeyo al-shabaab iyo sidii wadanka looga saari lahaa aanu soo jeesano laakiin yaa laga shaqeynaya waa in la hel cid laga shaqeyn lahaa waxaan diyaar u nahay doorashada 2020 process sharci inay ku baxdo oo dadka Soomaaliyeed ay ku heshiiyaan oo la isweydiiyo say u dhacaysaa ayaa waxay tahay wax lagu heshiiyay inay noqoto ee anaa rabiyo sidaan aan rabaa inayna noqon waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo marka iscaafisiga intoo dhan laga soo tago Jubbaland xaaladeeda amni waa muqadas in la ilaaliyo kama jiri karaan madaxweynayaal iyo dawlado iyo cid kale wax sheeganaysa waan bixinaynaa wixii fursad aan bixin karayno laakiin qofkii raba in la qanciyo ahlan wa sahlan waan soo dhaweynaynaa ama ciddii isku dayday inay amniga khalkhal geliso ama dhibaato geysato looma dul qaadanayo wax kasta oo dhibaatada amniga iyo dhibaatada amniga Jubbaland dhibaato u geysanaya wax la aqbali karayo mana qaadan karayno intaan dul qaadanayna in xadidan bay ahaanaysa waxaan ku soo gabagabeynayaa haddii madaxda federaalku ay iska bedeli waayaan waxa maanta ay ku socdaan ee dhibaatada jawaabtan ku xigteen bixinaa waxay noqonaysaa midaan ka bedelan oo ka adag waana cudur daarayaa cid kastoo dawladda wax ka sheeganaysay waana cudur daarayaa kuwa tabashada badan sheeganayay waxaan leenahay Soomaali way tashanaysaa aayaheedana ka tashanaysaa dhibkuna wuxuu dhibayaa inta gudaha ku jirta dhibaatada ku haysatay inta dibadda ka timid dhibaatadu ma qabsanayso nin bari tagayaan anaga laguma guurayo dhibaatana nooma geysanayo waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed gacmaha is qabsado ha is cafiyaan dantooda ha ka tashadeen hal la isweydiiyo meesha loo socdo siyaasadda Soomaaliyana waa in qof waliba taladu leeyahay oo ku soo darsado aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi